Abdi Ahmed oo ka mid ah burcadbadeeda markabkaasi haysataa hadalkiina dhex marayna waxa uu dhacay sidan adiga markan yaa ku soo siiyay qolada markabka ay soo siisay walaal qoladan markabka iska lahayd oo meeyo xagee joogan Dubai bay degan yihiin markabku muxuu siday maxaa saaray intaas uma doonaynaa inaan xaqiijino ma malaysa ha walaal ayaga maxay weydiin way iyagu waxay igu yiraahdeen raashin iyo buu siday markabku iyo badeecooyin kale iyo gawaari waagar idinku ma xaqiijiseen waxa markabku sido maanaw ha waxba waa ognahay waxna moogin waatay waxa ogtiin muxuu yahay ma malaysa waan ku maqlayaa Abdisalaan Hareeri inaad maxaa ku cadeynaysaa waa Abdisalaan Hareeri baa walaal kula hadlaya Voice of America kaala soo hadlaya hadda maxaan ku cadeynayaa anigu la Voice of America ma jooge dad dhaladeedaan joogay London baan kaala soo hadlayaa warkanna idaacadaad ka dhageysan doontaa ma maqlaysaa ha hadda idaacadii lama jooge waxaan ku yiri maxaan kugu cadeynayaa adigu hadda Abdisalaan Hareeri maxaa doonaysaa inaan isugu ka cadeeyo ma maqlaysaa waan ku maqlayaa adiga magacaa Ciise Abdi Ahmed Ciisow markabka halkee ka soo qabateen ma maqlaysaa haye markabka halkee ka soo qabateen Ciisow warniga waxaan ku sheegayaa adiga waxaan rabaa Abdisalaan Hareeri inka ilaaha la iyo in kale ma cadeyn karo waxa weeye anigu markabka badda Hindiya alaabada uu sido markabku maxaad nooga sheegi karaysaa warar baa jira sheegaya Ciisow inuu hub sido markabku maya anigu waxba oo indhahay u qabteen oo markabku waday ma jeedin Ciisow marka lacag intee leeg baa ka dalbanaysaan oo madax furasho in markabka la idinka siiyo waan ka dalbanaynaa wixii aan kaga heshiino nimanka iskale baad noomay sheegin wax qiimo ilaa imika ku heshiiseen haddaynan idin sheegin hadda kuu sheego maxaa ka qaban karaysaa ma lacagtaad ma siinaysaa maya iyagaan lagu gudbin lahayn oo dhagaysan lahaa dalabkiina ayaga maya live baan u wada hadalnaa idaacada waxaan ka wada hadalnaa telefoon baynu ka wada hadalnaa laakiin Ciise ma ii sheegi karaysaa qiimaha lacagta dalbanaysaan anagu waxaan kuu sheegi karaynaa lacagta markaan iyaga ka wada hadalno Ciisow hawshan aad ku jirtaan idinku sida u aragtaan dad fara badan waxay u arkaan inay tahay hawl burcadbadeednimo ah oo argagixiso badda laga sameeynaya adeero anagu dad masaakiina oo kalluumaysataa oo badahooda ka kalluumaystaan ahayn waxaana la ku soo daayay qashin kuwa sida maraakiib sida waxaana la ku sii daayay kuwa sun sida waxaana la ku sii daayay kuwa jiriifa waxa hadda ugu dhinac xiran mid kalluunka yagii wata sanaagaha yagii wata baraawista yagii wata xargaha yagii wata qalabka yagii sita badii baan ka mari weynay markaan dabacnay inaan iska difaacnana kuwa dagaal baan loo adeegsado caalamku noo adeegsado dad fara badan baa qaba sidaas inay tahay sidii markii hore ay ku bilaabantay laakiin Ciisow imika waxa la sheegayaa in badihii caalamiga ahaa oo ilaa Seychelles gaadhaan oo maraakiibta ka soo qabsataan oo kalluunkuna aanu ahayn kii badaha Soomaalida lagala soo baxayay annaga maxaan ku yiri xeebtii annagu aan ku noolayn oo biyaha afkooda naloo soo galay annagana duruuftu meeshay nala gasho baan aadaynaa ilaa annagaba guryaha yagii iyo xeebta yagii baa la soo galay maxaa looga hadli waayay meeshii annaga aanu kalluumaysadayadu aanan dhaafi jirin iyo meeshii aan maaragtay ilmaha iyagu xeebta iyagoo taagtaagan ay ka kalluumaysan jireen maxaa looga hadli waayay maaragtay marka naloo soo galay oo qarkii la jajabshay oo rugtiina la ka jajabshay oo marsooyinkiina la ka cayshay oo qalabka iyagii lagu gurtay laakiin markabkan ay imika haysataan ma aha soo maaha mid isagu kalluumaysi maaha soo maaha adeerow macaanow annagu ma kala naqaan mid aan u qabna xamuul ayaa waxaan aragnay kurtanaro ban ah asagoo nagu deex furayaynu aragnay marka annaga waxa weeye midkii annaga aan markaa badarka noo wadin oo aanan hebel u aqoon ma kala garan karo kii xamuulka ahbaa waxaa naloo soo saaray haamo ban ah oo qashin ah waxaa naloo soo saaray muxuu ahayto ayagii baa jiriifnala kugu bedelo jilba naloo soo saaray kalluumaysi ah midkii dagaalka oo xabadaha nagu ridayay ayaa dhinacna kalluumaysi ka oo xeebta noo taagan dhinacna xabad nooga ridayo annaga xabad nala dhacaya idinka yaa hawshan markaa idiin xil saaray waxaad tidhi dad kalluumaysataa baanu hayno quutal daruurigoodii laga hor yimi yaa idiin xil saaray hawshan annaga duruuftaa noo xilsaaray waqtigaa noo xilsaaray waxa weeye markii anaga aan wixii aan ka qaraaban jiro ilmaha ku korsan jiray aan weynay duruuftaa noo xilsaarnay inaanu difaac galno
ان مراكب هرونا سيدا قياسي وقبصتان عيسى وصومها قولدي الناس ما يعني waxaana dhibaatay ma dhibaatayna wixina nabadgeliyo waana nabadgelina wixina dhibaatayna way iska ilaalinaa oo waxaanu nafta la galnaa inaanu iska celino sida u badan tahay ana dawaabana la ka awood badan waana la kulayaanay laakiin maraakiib hore waa qafaalateen soo may jirin si ay ku dhamaatayba ma maqlaysaa waan ku maqlayaa ciise annaga waxna nabadgeliyay ma qafaalano waxna ma qafaalano wixii ma nagu soo xadgudba ma waxaan isku daynaa inaan iska difaacno kaasina wuxuu ahaa ninka magaciisa igu sheegay ciise cabdi axmed oo ka mid ah budhcadbadeedda iyagu haysta markabkaasi almiisaan cabdi axmed oo ka mid ah budhcadbadeedda markabkaasi haysata hadalkiina dhex marayna waxa uu dhacay sidan adiga lamarkan yaa ku soo siiyay qolada markabka ay soo siisay walaal qolada markabka qoladan markabka